بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيما بعد. ساكا أي تهاي سديت وانك بشهر رمضان كنا في البغلة فرتني صدح ووافقسن سقالكي بش أبريل لبكون يلواتني صدح وحن شوفنا عسبتال كسمكر وحا دنعي تاجن قاسمها عسبتال كسمكر إجروه دكتور عبد الله يوسف علي دكتور عبد الله أحمد يوسف سور دنعي تاجن waxaan cusbitaalka soo gaarsiinaynaa caawacyada cusbitaalka yaala oo dhaawacyadii jajabka ah ku soo dhaawacmay dagaalada Laascaanood lacag qadarkeedu u dhan yahay $2,000 waxaan guddoonsiinaynaa 40 kamid ah dhaawacyada oo aan mid walba guddoonsiinayno $50 lacagtan oo waxay ka timi magaalada Copenhagen dalka Denmark waxa soo diray jaaliyada halkaas ku dhaqan hawshaasna waxa uu qumay oo ka shaqeeyay soo ururinta lacagtan waxa soo ururiyay gabdhaha idil Cabdishiil Cilmi iyo Sucaad Cabdi Xakiin Cali Qayaad barnaamij bay leeyihiin gabdhahaasi la yiraahdo cun oo caawi oo ay ku marti qaadaan jaaliyada marba qayb kamid ah si ay dadka caawimo uga geystaan meelaha caawimooyinka u baahan dhibaatooyinka ka jiraan iyo waxa taagan marba dhib taagan lacagta waxa soo gudbisay oo soo gaarsay Safiya Maxamed Cali Qodax إلهي سبحانه وتعالى أبالكود يأجركود هبض يقبلهاس يضد كل شقي جالية رير كوبنهاجن سيدا في عن العقد نسجس وأوروريي عاومة برنامج كعنو عاوي قيب كلولي هاي أو دقالها كم ذا أو $9 العجارسة أيا يجنا مش لهذا الأسعانات لا دري أو يجنا عسبتال هذا يعافمات كهالكاس جاري marka barnaamij aad iyo aad u qiimo badan Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan uga baryaynaa dadka barnaamijkan ka shaqeynaya iyo gabdhaha hawshan abaabulaya Ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaankooda xasanaadka saaro aad iyo aadna waa u mahadcelinaynaa waa u ducaynaynaa jaaliyada Soomaaliyeed ku dhaqan magaalada Copenhagen Ilaahay subhanahu wa ta'ala ajarkiina iyo abaalkiina iyo thawaabkiina Allah badiyo meesha ka soo saarteen wax khayr leh Allah idin geliyo iminkana gudoomiyaha agaasimaha asfaalka ayaan kelmad ku wareejinayaa iyo mahadnaqayo gabdhahaas jaaliyada ee bukaanka soo caawiyay بسم الله الرحمن الرحيم الشيخ عبد الشافي إلهي خير هسيو sidoo kale gabdhaha muxsiniinta oo galtay dadka walaalahooda dhibaataysan in ay bishaan barakeysan ay wax ku soo sadaqaystaan waxaan filayaa in insha Allah miisaan badan iyo ajir xasanaad badan inay ka heli doonaan Ilaahay agtiisa kulay baahi binaadan maaragtay lama dabooli karo laakiin dhammaan maaragtay bulshada dadkeena insha Allah in loo dadaalo wixii lagu caawin karana dadka lagu caawiyo bukaanada mar labaad iyo mar saddexaadna waxaan u ducaynaynaa Ilaahay nooga baryaynaa dambi dhaaf maaragtay gabdhaha sharafta leh oo walaalahood ku soo sadaqaystay waqtigan la joogo sadaqadaas qaaliga ah iidiba iyaduna soo dhow insha Allah in maaragtay bukaanada ama dhaawacyada rag kamid wax laga yaabaa xaasas iyo ciyaal inay leeyihiin marka waqtigeeda la gaarana in laga farxiyo runtii wax aad u fiican bay ahaan lahayd aad baa u mahadsantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan idin salaameynaa hadiyadii aad u soo dhibteen wadaadkan ninka odayga wadaadka hadda waa la soo gaadhay dhakhtarku noogu yimid sifaheedu waa mariyay sida tahay ugu shaqeeyay nin walba gacanta u galiyay waa si dhaawaci wuxuu siin karayay waa nin islaam ninkaas anu tala yar baan idin sheegay taladan idin sheegay waxa weeye ninkan oo kale wax loo dhibaa wacan habeenadan dad baa telefoon nagala soo hadlay waxa leeyahay naagaan idin ku soo dhibnay marakanacay bustayaal iyo riwaayad mana aragno beentuna waa shay xaraana marka waxa waa ninkan ibn xalaalka ah imika wixii aad u soo dhibtay sidoodii dadkii u siinaya diinta dib ka celinaysa ma garato marka kaayna la shaqeysaan baa waxa dad wax soo dhiibsan kaad soo dhiibtaan annaga iyo dad kale ba waasi khatiirta kale loo maray ninkan aadna wadi salaam iyo maadariya وانا جمال حسن رحدن السلام عليكم